Tani waa qiso jacayl oo cajiib ah. Xiddiga dunida ugu wanaagsan Lionel Messi. Sheekada gabadhii dhamaaday Messi. Habeen Messi ee u ahayd habeen qaas ah. Lionel Messi markii uu yaraa wuxuu ahaa wiil koryoon jiray inuu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ku fariistay kursi miis dhinaca yaala qolkiisa yar ee jiifka. Wuxuu soo qaatay warqad iyo qalin wuxuuna bilaabay inuu qoro magaca gabar yar oo deriskooda ahayd. Warqadda oo wiilka yar qoray gabadha yar waxaa ku jirtay jumlad sidan u qornayd: maalin maalmaha ka mid ah waan isguursan doonaa. Sheeko jacayl oo mudan in filim laga sameeyo. Messi oo ah ciyaaryahan xirfadle ah oo dhashay 1987 magaalada Rosario dalka Argentina, iyo Antonella Ragozzi oo ah gabar qurux badan oo dhalatay 1986 ayaa qisada sheekadooda tahay mid mudan in qarniyo laga sheekeeyo. Isbarashada ilmaha yar oo qofna saadaal ka sii bixin karin in heerka nolosha ka gaari karaan ayaa ka dhacday guriga saaxiibka Messi, Lucas Scalia. Markii ugu horeysay ay kulmeen labada lamaane, Messi wuxuu ciyaarayay game gacmeed. Markii Antonella u soo dhawaatay ay weydiisay inay la ciyaari karto, Messi aad ayuu u xishooday. Waqtigaasi Messi wuxuu ahaa 9 jir, Antonella iyaduna waxay ahayd 8 jir. Waa tuma. Messi ayaa weydiiyay saaxiibkii, Antonella ayaa la dhahaa, waa in adeertay. Saaxiibkii Messi ayaa sidaa ku jawaabay. 2 maalmood ay wada kulmeen, kaliya ilbiriqsiyo uu ka jeesan waayay. Inkastoo ay ahaayeen 2 carruur waxay noqdeen saaxiibo, laakiin waqtigaasi Messi wuxuu ogaa inuu doonayo kaliya inuu la joogo iyadoo uu wehel ka dhigto. Intaa kadib Messi oo da' yar ahaa wuxuu inta badan joogi jiray guriga saaxiibkiis Lucas la kulma saaxiibtiis, sababtoo ah wuxuu ogaaday in gabadhan yar ay noqon doonto lamaanihiisa mustaqbalka. Waa siduu qiyaasay. Labada qalbi carruurta ahaa waxay noqdeen saaxiib isku dhow, waxayna wada qaateen madadaalo badan. Maalin maalmaha ka mid ah noloshu way kala kaxaysay. Waxay 2000 markii Messi aabihii Jorge Messi uu go'aansaday inuu u safro Barcelona isaga iyo qoyskiisa. Intaa kadib xiriir ka dhexeeyay Messi iyo Antonella ayaa meesha ka baxay muddo. Waxay isku dayeen in xiriirkooda wataan, laakiin aad uma fududeyn. Xiriirka ka dhexeeya labadooda wuxuu noqday mid aad u sii yaraaday. Sanadii 2005 saaxiibkii Antonella ayaa ku dhintay shil baabuur. Waqtigaa Antonella waxay 17 sano jir kaliya. Waxay dareemaysay murugo. Dhowr maalmood maysan aadin iskuul. Messi ayaa warkaas maqlay, wuxuuna isla markiiba u duulay Argentina soo dhinaceedu istaago. Wuxuu isku dayay inuu qalbiga qaboojiyo. Markaas ayay ahayd markii xiriirkoodu soo laabtay. Messi iyo Antonella waxay dareemeen farxad bakan kale oo u faraxsanaa, laakiin waxay doortay inaysan shaacin jaceylkooda qalbiga degay. Messi wuxuu ku soo laabtay Barcelona, Antonella waxay sii wadatay iskuulkeeda. Xiriirka lama sameyn ilaa Messi uu gaaray da'da 21 sano. Dunida oo dhan waxay ogaadeen xiriirka labada shakhsi. 2009 wareysi Messi uu bixiyay ayaa wax laga weydiiyay noloshiisa gaarka ah, wuxuuna sheegay inay jirto gabar Argentina ku nool oo saaxiibtiis ah. Kastoo ciyaaryahanka ugu weyn kubadda cagta uu yahay midka ay jeceshay Antonella, haddana iyadu gebi ahaanba ma jecla kubadda cagta. Waxay dareensan tahay in kubadda cagta ay tahay mid caajis badan. Messi ayaa dhowr wareysi uu bixiyay ku cadeeyay in xaaskiisa ay ku daashay kubadda cagta. Markii aan guriga ku soo noqdo aan dhaho 2 gool ayaan dhaliyay ama 3, ma xiiseyso iyada warkayga. Waqtigan waa lamaane wada nool, isku haya carruur, jacayl badanna uu ka dhexeeyo. Antonella iyo Lionel Andres Messi oo xilligan ah ciyaaryahan kubadda cagta ka gaaray meesha ugu sareysa. Sidee u aragtaa nolosha iyo jacaylkan cajiibka ah?